warbixintan waxaan ku istaagi doonaa daawadayaal wiil ka caan ah aaladaha TikTok kaas oo si dheeliyana u soo gudbiya muuqaalo dadka Soomaaliyeed qalbiga ka xaganaya iyo sidoo kale saameyn ku yeelanaya qalbiyada dhaawaca uu soo gaaro kadib markii uu qarax ka dhaco magaalada Muqdisho ama uu soo gaaro dhibaato aad u culus. wiilkani wuxuu ka caan yahay aaladda TikTok isla boggiisa TikTok waxa ku xidhan dad gaaraya 200,000 oo qof. 200,000 qof ee si dheeliyana ugu xidhan bartiisa TikTok wuxuu si maalin walba ula wadaagaa dhibaatada kolba ka soo kordha magaalada Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed isagoo mar walba afragaadeynaya sheekh walaa wadaad walaa qofin. haddaba warbixintan waxaan ku dul istaagi doonaa waxyaalaha isaga naftiisa u khaaska ah sida in dhibaatada uu Muqdisho u geysanayo uu ku safri kari waayo magaalooyinka uu ku sugan yahay isla dalka Somaliland. sidoo kale wiilkan waxa soo kalifta mararka qaar dhibaatooyin aad u waaweyn taas oo kaga timi dhinaca social media kadib markii uu ka soo caan baxay aaladda TikTok. gabihaanba waxa isbedeshay masayrka iyo sidoo kale mustaqbalkiisa. waa wiil ku caan baxay ayada iyo aflagaadada walaalaheena Soomaaliyeed ee reer Muqdisho iyo dhibka haysta ee qarax iyo dhibaatooyinka ayuu ku farxa oo bariis kaga raadiya aaladaha social media. wuxuu dabaqaayadii sanadkan 2021 ka caan baxay aaladda TikTok halkaas oo ay ku xiran yihiin dad gaaraya 200 oo qof oo iskugu jira dad yar iyo dad waaweyn. laakiinse arrinka waalida ah iyo xumaanta ayaa ah inuu ku farxo dhibaatada haysta walaaladii Soomaaliyeed ee reer Muqdisho ama Soomaaliya. sidoo kale wiilkan la magac baxay Sultan Iskamanjida ayaa ah wiil caananuuga oo aan Hargeysa dhinac u dhaafin taasoo sababta inuu ka bixin karin magaalada uu ku soo caqleystay waxaas oo dhiba wuxuu iskugu geysay afkiisa. Soomaalida ayaa ku mahmaahda afkaaga oo ku furi waaya waa alago. sidoo kale wiilkani iskuma aamino inuu dhex galo dhalinyarada iyo sidoo kale meelaha ay dhalinyaradu ku kulanto taasoo sababtay inuu naftiisa had iyo habeen ay ku jirto warwar.